munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka hay'adda Meersi ee deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud oo ka dhacday magaalada Cabudwaaq warbixintan waxa inoo soo koobaya wariyahayaga Mahad Bashiir Xilif munaasabad lagu soo bandhigayay waxqabadka hay'adda Meersi ee muddadii sanadka ahayd ay ka howlgalaysay deegaanada waqooyiga gobolka Galgaduud ayaa maanta lagu qabtay holka Ugbaad ee magaalada Cabudwaaq munaasabadan oo ahayd mid heerkeedu sareeyo ayaa waxa ka soo qayb galay maamulka degmada mas'uuliyiinta ugu sareysa hay'adda Meersi ururada dhalinyarada iyo haweenka maamulada xaafadaha qaar kamid ah bulshada ka faa'iideysatay hawlaha caafimaad ee Meersi iyo qaar badan oo kamid ah bulshada deegaanka ugu horreyn waxa kulanka daafuray oo ka hadlay gudoomiyaha degmada Cabudwaaq Mahad Cumar Cilmi asagoona faahfaahiyay faa'iidada ay Meersi u hayso bulshada degmada Cabudwaaq waan soo dhaweynayaa anigu ka gudoomiyahan waxaan aad ugu mahad celinayaa tiimka shaqada wada xilliga aan ku jiro iyo duruufaha jira iyo sida ay ugu adeegayaan bulshada ay gacanta ku hayaan caafimaadkooda waxaanan isleeyahay runtii waa laf dhabarta deegaanka arintaas markii hooyada iyo dhallaanka la eego Baracali Dhuux iyo Xasan Xuseen oo ah labada mas'uul ee hay'adda Meersi ugu sareysa heer deegaan iyo heer wadan ayaa goobta ku soo bandhigay waxqabadka hay'addaasi muddadii sanadka ahayd ayagoona ka sheekeeyay faa'iidooyinkii ay bulshadu ka heleen haddaan u gudagalo mashruucan wuxuu ka kooban yahay xarun caafimaad oo la yiraahdo isbitaalka guud ee degmada wuxuu kaloo ka kooban yahay laba xarumood oo caafimaad oo midna ku taala Cabudwaaq xaafadaas Amaano midna ku taala Balanbal degmo kasta labada degmo waxay leedahay 5 meelood oo ka baxsan magaalada oo loogu tago qof dad shaqaalaan ay joogaan looguna tago week walba maalin oo la yiraahdo bukaan eegto ama xarun ka baxsan MCH-da dawladda magaalooyinkaas waaweyn waxaan kaloo leenahay laba team oo u diyaarsan maalin walba xarumahaas meel ka baxsan inay aadaan mashruucan dadka u shaqeeya oo shaqaalaha u ah oo labada degmo ka shaqeeya una badan 90% iyo wax la jira degmadan Cabudwaaq staafka shaqaalaha jooga waa 211 qof ayaa ka faa'iideysata oo hay'adan u shaqeysa oo joogta mushaar ka qaadata ka shaqeeya arrimo caafimaad iyo nafaqo iyo talaal isugu jira 211 qof meelna lagu qorto 2019 dadka ka faa'iideystay mashruucan waa 52615 qof dadka ka faa'iideystay mashruucan oo aan islahayn waa midkii ugu tabarta darnaa waa midkii ugu supportiga yaraa waa midkii ugu waqtiga dhawaa oo waqtigaas waad garan karaan sanad hay'ad sadab kuma qaadan karto waxaan keensanay dad shaqaale ah oo aan lahayn meel ay ku shaqeeyaan oo aan maqas wadanin oo aan daawo wadanin oo aan wax kala wadan waxa ku dhashay wax ka badan 1000 qof 1000 hooyo ayaa ku dhashay labada xarumood oo Balanbal iyo Cabudwaaq waxa lagu qalay 38 hooyo oo dhalmo toos ah dhali waayay waxaan rabnaa maadaama halkaan isku imaadnay inaan si fiican iskaga warcelino arintana qofkii oo arkana uu si fiican u cagelin u sameeyo isbitaalka hal imaado dhaqaatiirintana hala aamino trust talada ay ku siiyaan insha Allah mid horta xun ma ahan aqoonta qofka waxa ku xirnaato talada ay bixiyaan waa muhiimada oo qofka iyo dantiisa baa loo bixinayaa marka insha Allah weli gabdhaha uurka waa kala daarmeynaa wax badan aragnay gabar oo ayadoo fiican wax loo qaban kara la bixi dib loo soo celiyo aad ku rafaaday haddii ay dib kala imaadina waxay noqotay in isbitaalka waqti dheer ku jirto ugu dambeyn qaar kamid ah bulshadii kala duwaneed ee ka soo qayb gashay una badan bulsho ka faa'iideysatay ayaa dareenkooda ka dhibtay ayagoona sheegay in loo baahan yahay in waqti intaani ka badan ay Meersi deegaanka ka sii shaqeyso saddex bari aan foolanay anoo dhibanaha imid aadaan u dhibanaa 9 saac baan soo galay 10 saac anani ilmahaygu waa nabad qabnay alxamdulillaah rabbil caalamiin hadda soo iskala hayd doctoradina kala badbaadisay dhaqaatiirta aad buu mahadsan waxqabadkiinu waa sareeyaa waanu wada ognahay hanaga soo qaadinina marka labadii burobogaanka meelaha la taagneed inaan intanada kale jecelnahay oo aad shaqayseen ka dhiga taas ka dhiga hobbiga nagu inuu aad u sareeyo ku qanacsanahay
wasaaradda caafimaadka dhan aan ku qanacsanahay ka dhiga kulankan ay maanta hay'adda Mercy iskugu yeedhay bulshada kala duwan ee degmada ayaa waxa uu qayb ka noqonayaa kulamada wacyigelinta ah iyo soo bandhigida hay'adaha caafimaadka ee ka howlgala gudaha degmada Cabudwaaq waa Mahad Bashiir Cismaan Mahad Xiliif telefishinka caalamiga ICW magaalada Cabudwaaq ee gobolka Galgaduud